salaamu ullaahi calaykum raxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal habeen wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaan iyo weliba si walba muuqaalkeenna uu idiin soo gaarayo halkani waa Tolita Channel kuna soo dhawaada barnaamijkeenna ciyaaraha qodobada xiisaha badan ee caawa aad ku dhageysan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya laacibka lagu magacaabo Paul Pogba oo mustaqbalkiisa go'aan ka gaaray macallimka lagu magacaabo Mauricio Sarri oo noqday hogaamiyaha cusub ee kooxda Juventus iyo laacibka kooxda Lyon ee Tongai Ndombele oo waqti xaadirka kan ku wajahan mid kamida kooxaha horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska sidoo kale barnaamijkeena waxa aad ku dhageysan doontaan inta uu hawada ka baxayo kooxda lagu magacaabo Barcelona oo waqti xaadirka kan shaacisay qiimaha lacageed ay ku doonayso weeraryahanka kooxda Atletico Madrid ee Antonio Griezmann iyo Arsenal oo u dhaqaaqaysa mid kamida laacibiintii hore ee kooxda Atletico Madrid iyo xulka qaranka Belgiumka barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan ugu horeyn haddii aad nagu cusub tahay subscribe dhaho channelkeena adigoo riixaya calaamada gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya hana naga iloobin in aad like sarto muuqaalkan mahadsanid ugu horeyna aynu ku hormarnay naadigu Juventus ayaa ku dhawaaqday in macallimkooda cusub uu noqday ninka ku fashilmay horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska iyo waliba qalcadu Stamford Bridge ee Mauricio Sarri ka gadal markii ay ku adkaatay cimilada la qabsi ee horyaalka ugu xamaasada badan qaaradda Yurub ee Premier League kooxda Bianconeri ayaana xaqiijisay in macallimkooda cusub ee Mauricio Sarri uu qalinka ku duugay heshiis uu ku joogayo kooxda Juventus 3 sano oo soo aadan heshiiskaasi oo ku eg 30 bisha June 2022 dhinaca kale maamulka kooxda Chelsea ayaa shaaca ka qaaday bixitaanka macallimka reer Talyaani ee Mauricio Sarri naadigu reer Talyaani ayaana si rasmi ah waxay u sheegeen in Sarri uu noqon doono hogaamiyahooda xiga ka gadal bixitaankii macallimka lagu magacaabo Massimiliano Allegri macallim Mauricio Sarri ayaana kooxda Chelsea ku hogaamiyay kaliya ku guuleysiga koobka Europa League Chelsea ayaana la filayaa in uu noqon doono hogaamiyahooda xiga Frank Lampard oo kamida halyaayadii ugu wanaagsanaa ee soo mara kooxda Palo dhinaca kale habeenku caawa waxaa si weyn loo hadal hayaa xidiga kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa xaqiijiyay in waqti xaadirka kan uu u baahan yahay in uu galo loolan cusub isla markaana uu ka caragadisto horyaalka Premier League iyo waliba garoonka oo Trafford oo Pogba ayaa jawi jahwareer ah wuxuu ku qaatay xilli ciyaareedkii soo idlaaday qalcadu oo Trafford isaga oo hadlayayna waxa uu yiri waxa jira hadallo iyo waliba fikirro badan aniga ahaan 3 xilli ciyaareed ayaan ku qaatay kooxda Manchester United waxaan bixiyay heer wanaagsan waxa jira daqiiqado farxad leh iyo daqiiqado xun sida qof waliba oo kale iyo koox kasta oo kale kadib xilli ciyaareedkan iyo wax kasta oo dhacay xilli ciyaareedkan inkastoo aniga ahaan uu ii ahaa xilli ciyaareed fiican waxaan u malaynayaa in ay noqon karto waqti fiican oo aan tijaabinayo loolan cusub oo meel kale ah waxaan ku fikirayaa arintaas si aan u tijaabiyo tartan cusub oo meel kale ah ayuu yiri Paul Pogba waxaana xusud mudan in Paul Pogba uu soo caga dhigtay qalcadu Old Trafford xagaygii 2016 isagoo ugu yimid kooxda Juventus aduu lacageed gaaraya 105 milyan oo euro xilligaasina waxa uu noqday laacibkii ugu qaalisanaa dunida kubadda cagta Paul Pogba ayaana loo xaglinayaa waqti xaadirka kan ama suuqa xagaygan inuu ka mid noqon karo laba kooxood midkood waana Real Madrid iyo waliba kooxda Juventus geesta kale kooxda haysata horyaalka Spain ee Barcelona ayaa rajaynaysa in dib ay u soo ceshato aduu lacageed gaaraya 60 milyan oo gani suuqa xagaygan waxa ayna suuqa dhigi doontaa ciyaartoy fara badan oo qayb uu ka yahay Andre Gomes, Jasper Callison, Dani Suarez, Rafinha iyo waliba ninka kale ee lagu magacaabo Adrian iyo xidiga kale oo dhowr ah
waxa ayna doonayaan lacagta ay ku iibiyaan xidigahaasi in ay ku soo xerogeliyaan laacibka weerarka ugu ciyaara kooxda Atletico Madrid iyo xulka qaranka France Antonio Griezmann horanta bisha soo aadan ee July. sidoo kale wararka caawa jira waxa qayb ka ah kooxda Arsenal ayaa iyadana dalab rasmi ah waxay ka gudbisay weeraryahankii hore ee kooxda Atletico Madrid iyo xulka qaranka Belgiumka ee lagu magacaabo Yannick Carrasco kaasi oo ka xamaasha horyaalka dalka Shiinaha. halka caawiyaha kooxda Chelsea ee lagu magacaabo Joao Franco isna la filayo si lamida macalimka lagu magacaabo Maurizio Sarri in uu isaga tagi doono qalcad caanka ah ee lagu magacaabo Stamford Bridge. ugu dambeyntiina maamulka ugu sareeya kooxda Chelsea ayaa ku fikiraya in heshiis 2 sanadood ah ay gacanta u geliyaan Frank Lampard si uu u noqdo hogaamiyaha ama macalimka cusub ee kooxda Chelsea. Chelseana waxay u baahan tahay dib u soo kabasho wacan oo wanaagsan ka gadal markii ay waayeen laacibkooda muhiimka ahaa ee Eden Hazard. barnaamijkani ciyaaraha waa naga inta ee asxaabay sida iyo nabadgelyo.